waxa uu gaaray heerkii ugu sareeyay qof casriga nool uu ka gaari lahaa cilmiga sayniska isagoo soo hindisay fikradda isjiidaadka hawada sare ee loo yaqaan black holes isla markaana qoray buugaag badan oo cilmi sayniska ah markii uu 22 jir ah ayaa laga helay xanuunka ku dhaca neerfaha maskaxda iyo xungulaha waxaana loo sheegay inuu geeriyoon doono muddo 2 sano gudahood ah balse marnaba ma uusan rajo dhigin shaqadiina waa uu si laba jibaaray xanuunka ayaa waxa uu Stephen Hawking oo shalay geeriyooday ku kalifay inuu ku aruuro gaariga curyaamada isagoo xitaa lumiyay codkiisa waxa uuna dadka kula xiriiri jiray qalabka codka soo saaro waxaan u maleynayaa inuu qabtay wax ka badan intii ay dad qaban jireen waxa uu tusaale cad u ahaa inaysan jirin xuduud reebi karta bini'aadamka ayuu yiri Professor Paul Shellad oo ka mid ah ardaydii wax u dhigay Hawking dad aad u badan ayuu tusaale wanaagsan u noqday Hawking isagoo lagu sharfay abaalmarino badan adduunka waxa uu xitaa mar furay ciyaaraha dadka lixaadka la ee Olombikada ee London ka dhacay mid ka mid ah waxyaabaha waaweyn ee uu taray dadka naafada ah ayaa ahayd in uu ahaa nin bulshada ka dhex muuqday isagoo oo curyaan ah taasna waxa ay bedeshay fikradii ay dadka ka qabeen naafanimada waxa kale oo in yar ka soo muuqday filmaan dhowr ah oo laga jilay oo uu ku jiray filimka uu ku guuleystay abaalmarinta Oscars ee The Theory of Everything sheebaarkiisa waxa uu ahaa maskaxdiisa waxa uu qalab ahaan isticmaali jiray xisaabta dadka naafada ah ayaa tiro laba jibaar ah ka badan inaysan shaqo heli waayaan marka la barbar dhigo kuwa lixaadkooda leh talada kaliya ee uu hay dadka naafada ah ayaa ahayd in ay xoog saaraan waxa ay qaban karaan oo aysan ku mashquulin waxa aysan qaban karin jir ahaan Miski Maxamed Caate barnaamijka Fiid Wanaagsan